دين قال قبوا أنا قاس قبين وربنا وحمد ترى أنا قاس قبين أنا حجار هدادن سان آدن جوجنين باسبور كنديانا تاي إن الشارع كل تكسن أو ملكستان كل تجنو حجار محكمة كندا كاغا فرا دعوة أذان كوها يستا ناقتاني waxaan ma ka saaniga sheekada adaa ka dambeey dokumentiyan ka haya ma faant keesa xaq anigii aad ka wada furnayna waa Jamaal Cabdi Cabdulle oo hooyadii dhashay ay geeriyootay iyadoo ku jirta halganka dhulkan sharciga uu u xukumay balse la daala dhacaysay la dagaalanka rakuwan shaati dawladeed oo sheeganayay sida uu aaminsan yahay dhowr jeer ayaa xabsi loo dhigay arinta la xiriirta dhulkan ay lahaanshihiisu sheeganayaan waxaana uu rajo ka qabaa in cadaalad ay heli doonaan dhulkan oo uu sheegay in dawladii kacaanka ay siisay sharciyadoodan ay u dhameystiran yihiin ayuu tilmaamay in taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya uu doonayo in sifo aan sharci ahayn dhulkan uu ugu wareejiyo qaar kamid ah ehelada taliyaha booliska qaar kamid ah eheladiisa عدالة لنا وحدانا كيسنا عدالة دهنا أهلنا ها ناقت وحيوات أنا وحنا هلا أركو هذا أنت كبحنا هذا كبحنا لكن عدالة درها دير دعدو أو إحنا اللي قوم واي إلا هذا وحنا احترامنا دولة يحصلوني كشقيننا مركب ماشان وحنا كبرينا ومد الصومالي وداود السودان أنك برينا عدالة ودك إن الله هلو أنا عدالة أنا هلو دتك عادة هذه السياسة وحرام تكونول وودك إن ماذان خاصة ومد الصومالي ودقن ومد الصومالي دعس هو إذا عدالة دري كل مت حجار محكمة كندا كاغفرا دعوة أذان كوها يستان ناقتاني وحنا ما كساني شيء كذا هذا كدم دوكيومنتيان ka haya ma faant Cabdi Cabdulle waa 97 sano jir wax badan ka og marxaladii kala duwanaa ee dhulkan uu soo maray si weyn ayaana looga yaqaanaa deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan deegaanka Arbaco waxa uu sheegay in awood dawladeed loo adeegsanayo waxa uu codsi u diray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo kan Koonfur Galbeed isagoo sheegay in muhiim ay tahay in dhammaan mas'uuliyiinta dalka cadaaladda ay ka shaqeeyaan aniga يا حاسكي سدع بري أم قرنين ستيشن أفوي قول لي هاللي هاي مالك قرن دايم أبيعري وأنا لسه قد بي CID أنا لقي وأنا أقول حري بعيرة محاك حرين أنا هاي الرمان قرال كينا مال سارة هاي أنا نك مدحده قاب درده ولقمايو علي رسولك وين سلانتي عدالة دري ودمت عدالة درو أيه ودمت مرة ابنه عدالة در الدمبو أنا قال قبته قبدام دين قال قبوا أنا قاس قبين وربنا وحمد ترى أنا قاس قبين أنا سدع بري وحرت محيلان أفوي أنا يا حسني هبين مالنا وحرت محيلان CID أنت أصلاً وصبرني وأنا دب جوكتا مال والبام كدعوين أبتجاد أو الدوداي أبتجاد أو الدوداي وملحي أبتجاد لا كعبصة بنانك كمرو وأول حين أنا قاعد وحق لهذا على السيو وحق الأولى أنا قد دايم dadka deegaanka oo si weyn u yaqaan dhulkan iyo asal ahaan cid leh ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay tahay wax aan dawladnimada u wanaagsaneen in qoys Soomaaliyeed oo danyar ah loo awood sheegto waxana ay xuseen in goobjoog ay ahaayeen marxaladihii kala duwanaa ee dhulkan uu soo marayay qaar ka mid ah qoyskanna dhibaatooyin loo geystay iyadoo ay u geysteen dad huwan shaati dawladeed dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa oo duqa magaalada ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha
madaxweynaha waxaan ka codsaynaa gabadhaas waa la dulmiyey allah naxariistay dulmigaas inay u dhimatay waxa hadda joogo oo adaadkii ay ka dhimatay waa joogaa walaal wiilisheedana waa joogaan gabdhaheeda waa joogaan walaalaheeda waa joogaan waxaan dawladda sharafta la ka codsaynaa duqa magaalada iyo wixii kale ka sii sareeyo dhan waxaan ka codsaynaa dulmigaas in laga gaaro intii goor tahay fartuun cabdullaahi gabadhaan la leeyahay annagu weligeen ma arkin iyadoo iska ordaysaa niman afgooye mataqaanaa ay ka keensatay dhul cabiran ee ku elaysan elayaal dhagax oo mitir jeeda dhul ku yaalo mitriyaalka dhagaxii elihiya loo kor saaray mitir ilaan dawladdu waa ka xoog badan tahay waa dacwootay waa la jirnay dhulka annaga dirisaan nahay waxaan ka saaranahay dhinaca bari qoraxda may ka soo baxdaa ka saaranahay waxaa la yidhaahaa maxamed cabdulle maxamuud oo maxamed cabdulle gacani ku wardheer xaaji duudkay ku wardheer marka dirisaan nahay waxaa loo baahan yahay afgooye nin xamar joogo haddii uu xukumo dhul baydhaba ku yaal macquul ma naqayso uusan wax ka ogeen oo diris la ahayn uusan xud ogaal lahayn inuu xukumo macquul ma noqonayso waxaa macquula dhulka dadka deegaanka oo diris ku ah in la weydiiyo la su'aalo la yidhaah war dhulkan maxaa ka jira yaa iskale maahan haddii xafiis lagugu yimaado gabar warqad wata kuu timaado waa kuu xukumay war dadka yaa laysku dilin yaa laysku layn ummadda soomaaliyeed dawladda sharafta leh madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaa ka codsanaynaa dadkaas inay kala qabtaan bini aadanimo u kala qabtaan garsoornimo u kala qabtaan saasaan leeyahay dawladda waxaan ka codsanaynaa xaqdarradaas inay si degdega uga hortagto tallaabo degdega laga qaado oo carruurtaas ay bari ka tagtay ay xaqooda helaan xaqooda si kasta ayaga iska leh waa inay xaqooda helaan oo aan lagu dulmin bari cabdulle maxaad ay leedahay ka marqaati kacayo waxaan ka marqaati kacay cadaalad darro inay gabadha u dhimatay maamada 65 jirka ah cadaalad darro loo xiray awood loo sheegtay meel ay gasho ay intay weyday dhiig ku furmay kooma gashay kuna tagtay dhulka ay ilaa 4 sano muddo laga joogo waagii calowgaas iyadoo goof ah ayaa qofka ugu horreeyay sharciyeystay ayada ahayd loogadii ku soo baxday magaceedu ku soo baxay goofleedii baa joogta ninkii dhulka laga gediyaa jooga naagta dacwoonaysa ee dhulka ku haysata ee dhahayso dhulkan nin la yiraahdo hebel baa iska leh dhulka documentska qofka loo soo xugminayo waa nin magaciisa ninka loo xugminayo nin laga yaqaano dhinacan ma aha magaciisa lama yaqaan dhulka ninka iska laha oo goof ahaan looga gatay ma aha kuma documentka kuma quseeyo maryan qof dacwo oo dhulka lagu haysto oo maryan la leeyahay meeshan ma jirto maalin kasta waa la imaanaya odayga 9 jirka ah maryan hadda way dhimatay odaygeedii la xiraaya documentiska afgooye iyo waxa ummadda lagu qaribaya wax ka qaban lahaa muhiim ay wax ka qabtaan marka waxaan leenahay haddii islaamnimo jirto oo walaalnimo jirto dawlad hadday jirto oo madaxweyne jiro oo wax kasta jiro waxaan jeclaan lahayn cid kasta oo islaam inay soo fargeliso annaga dad inaan dulmino marna diyaar uma nihin cidna dulmaysana ma keebaysan doono wala gabadha walaashayna leeyahay annaga haddii dhul leedahay uma diidayno laakiin dhul naguma laha ninka ay sheegayso dhul naguma laha haddii dhul ku leedahay ninka goofliha waa nool yahay waa la keeni karaa shalna waa horkeena maanta waa horkeeni karnaa haddii hal isdila leedihiin hadda waa kulli annaga dad dilmayna laakiin wixii ilaahay ka dhigay noqonaysa marka waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ummadda Islaamka in arrintaas wax laga qabto Safiya Cabdulle Maxamed waxa ay la dhalatay hooyada qoyskan oo geeriyootay waxa ay dalbanaysaa in cadaalad ay helaan qoyskan oo ay sheegtay in mas'uuliyiin uu qayb ka yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya uu doonayo in dhulkan sifo aan sharci ahayn uu ugu wareejiyo qaar ka mid ah eheladiisa حجار هدادن سان آدن جوجنين باسبور كنديانا تاي إن شرعي كل تكسن أو ملكستان كل تجنو مدن مدحوينه محمد عبد الله فرماجو ومدحوينه وقوري وياه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إن كفر قلبي مدحوينه عبد العزيز لفت جرين وحق بهنا عدالة إن أنا الله سماه ولا شيء ما أنتوا حدا دي متوا ستريس وديك مدح وقفرمي استروا كدعي رفات كان يدبعتنا لو مرسيه واي عدالة وبهنا دنا عدالة لقولين ودن كان والله ودن كان هرمر مجارسه si kastaba kiisaska la xiriira muranka dhulalka ayaa hor yaala garsoorka dalka dhowr jeer oo horena maxkamadaha Soomaaliya waxa ay sheegeen inay kala xukumeen lahaanshaha dhulalka Xasan Kahyo Som News TV Muqdisho
Payc shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka Payc waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka Payc waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga Payc si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga Payc 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 Payc